هاي سو دواada mar kale xisaabtii Dr. Bootaan ku soo dhawaada qaybtan ku gabagabayn lahayn fractionka waxaynu ka shaqaynaynaa word problems iyo sida looga shaqeeyo ayaan isusaynaa tan ugu horeysa in aad problem ka shaqaysid aad doonaysid they understand the problem waa inaad fahamtaa waxaa ugu yaabka badan laga fasiraa problem baan ka shaqaynayaa haddana waxba ka fahmin marka waa very important inaad problem fahamtid sidaad ku fahmaysaa laba siyaabood marka koowaad waa inaad akhridaa problemka read the problem and carefully and understand what's needed wixii loo baahnaa maxay yihiin talow maxaa laga rabaa midada labaad waa inaad raadsaa erayo sumadaha ayaa jira ama calaamado signal words loo yaqaano maxay yihiin erayadaas fraction signal wordska erayada tilmaama erayadan waa baran doonaa la mari doonaa xisaab oo dhan waxaa weeyaan waxbay ku tilmaamaysaa xisaabtu waa hadal erayada ku tilmaamaya isku darka ku tilmaamaya waxaa ka mid ah erayadan la yiraahdo addition add plus sum increase all total all together kuwaas oo dhan waxay tilmaamayaan ay sumad u yihiin kula hadlayaan qowl xisaabtu waa isku dar bay ku leeyihiin haye kuwana waxay ku leeyihiin war xisaabtu waa kala jar subtraction subtract minus difference decreased reduced left over kulligood waxay ku leeyihiin war xisaabta war baan ku ognahay xisaabtu waa kala goyn kuwana waxay ku leeyihiin waran ku waran xisaabtu ama ku waran xisaabtu waa isku dhufasho waa multiplication multiply product iyo wixii la mid how many times kuwana waxay ku tilmaamayaan divisionka ama isku qaybinta waxa weeye divide average shared evenly equally split equally quotient marka waa inaad problemka marka akhrinaysid waa inaad eegtaa kuwaas waaya aynu isku dayno inaynu hal problemka ugu horey ka shaqayno waxaa la yiri two sisters baa waxay rabeen want to what two sisters want to add their shares in a new grocery dukaan bay rabeen in ay ka qayb galaan labada walaalaha oo isku darsadaan qayb ka noqdaan mid Aisha ayay ahayd oo Aisha iyo Zahra waxay leedahay 4 share 4 meelood bay leedahay Zahrana 2 meelood ayay leedahay oo qof haduu $2 $4 bar leeyahay qof kale $2 bar buu leeyahay ama qof haduu $2,000 bar leeyahay kale $4,000 bar buu leeyahay waayahay how many shares are they all together had imisa share bay isla haystaan gidgood haye maxay kula tahay problemka muxuu yahay isku darid Soomaa sababtoo ah all together taasa waxay tahay signal words dee dhib male fraction comba isku daraysaa kaasna waxaan filayaa xariifina ku tiin marka aynu aragno 4.5 waxaan ku daraynaa 2 bar kor baan ka garan karnaa 4 bar 2 bar lagu daray waa iska 6 ilaa meel 7 isku yihiin Soomaa laakiin xisaabahan aad ka shaqaynaysid waxaad samaysaa isku dar labada horgalayaasha 4 iyo 2 waa 6 bay isku yihiin labada fraction kana isku dar 2 loo qaybiyo 2 taas waxay la mid tahay 2 loo qaybiyo 2 waa 1 6 lagu daray 1 waa 7 waa caddahay taas fractionadii hore ku noqo hadaadan taas ku caddayn aad u fahmin problem kale ku xijinaynaa problem number 2 waxay leedahay sidan Ali used 2.5 cups of flour burbu isticmaalay ninka Ali la yiraahdo 2 koob iyo bar si u diyaariyo sambusa Ramadan yaa laga yaabaa inay tahay another 3.5 cups 3 koob iyo bar kalena uu isticmaalay buu haddana isticmaalay si uu sameeyay cake how much flour has he balagarba has he used imisu Ali isticmaalay oo bur ah imisu isticmaalay waa caddahay dee maxaa 2 bar iyo 3 barna isku geyna weeyo waxay isku yihiin marka la xisaabta ka shaqayn doona waxay isku yihiin 2 bar iyo 3 bar 6 bay isku noqonayaan xisaabta fractionka waa taas adigaan laga rabaa inaad si fudud isugu dartid waayahay xisaabahan oo dhan waa fudayd waxaan ugu talagalay inaan problemka ku fikirno erayada signal wordska wuxuu ahaa how much muxuu ahaa how much by head signal word how much waa imisa by head signal word erayga how much okay let's see how much they taas ahayd mid kale aragno problem number 3 waa sidan waxay leedahay the height of the building guriga dhererkiisu wuxuu ahaa 12.5 feet high before it was doubled intaan laabin how tall is the building erayga signalka muxuu yahay hadda ka fikir
laban laab maystiri ya double waa laban laab warku waa cad yahay waa laban laabaynaa wixii marka double means twice weeyaan laban laabku hadduu twice yahay 2 alifkii aan quarterkii waxaan ku dhufanaynaa labada hore ayaa laban laabkaasaan oo keentay labaynu ka dhigaynaa dee waa isku dhufanaynaa isku dhufshadan waa inaad taqaanaa haddaad aqoon fadlan fractionadii ku noqo isku dhufshadan kusoo baranay isku dhufo mixed ka saar marka hore 49 bay noqonaysaa or 4 laba ku dhufo aakhirkii gabagabadii waxay isku noqonaysaa 24 iyo bar haddaad su'aalo ka qabto isoo qori doontaa arrinta ay kugu adag tahay ama kugu soo celin doono insha Allah waqtigeeda ama ku tilmaami doono meesha ka helayd waaya aan ku darno laba problem oo kale mid kale aan ku darno midkan kale aan ku darayno waa sidan waxaa la yiri before he started the gym waa wiilka gym buu bilaabay aw jaamac de waa nin weyn beelata wiilasha lama yira aw jaamac was 178 and 3/4 pounds buu ahaa he lost 18 and 1/3 of a pound intaasuu lumiyey how many pounds is he now waa imisa hadda way caddahay ninkani waxaa la yiri lost waxbuu lumiyey soo maa marka waa kala goyn waan kala jaraynaa xisaabtaas waynu ka shaqaynaynaa sida looga shaqeeyana dee waa in hoosta laga simaa marka hore 2 alif ay isugu yimaadeen waa kuwa markaasi waynu kala goyn karnaa kuwa hore iyo kuwa saraba waan kala jarnay 160 whole number 5 or 2 alif ay soo baxday xabada u dambaysa aan taabano xabada u dambaysa aan rabo inaan ku tuso problem signal words kan ku baro waxa weeyaan suban inta la yiraaho ama maamada la yiraahdo is cutting a curtain waxay jarjaraysaa bahalkii shay bay jarjaraysaa si isleeg saddex qaybood u jaraysaa the curtain has a width-kiisa wuxuu haystaa and of wuxuu haystaa 5/4 hadduu width haysto imisa weeyaan intaasuu ahaa curtainku hadda waa imisa marka buu noqonayaa waa caddahay waxaan u qaybinaynaa saddex qaybood baan u qaybinaynaa waayo saddex meelood baa loo kala gooyey saddex qof baa qaybsatay signalkuna wuxuu ahaa 3 equal sizes dee isku qaybintaada xariifaad ku tahay ila tahayo waa tiilka la rogayo wataa taa mixedka laga saaray 3 sidiisaa loo daayay multiplication baa laga dhigo 3 iyo 1 kale isdaba mariyay 3 ayaa hoos la mariyay 1kiina dusha 7/4 ayaa soo baxday haddaad xariif ku ahayn dee fractionadii kuwii aad gabagabadii iyo taladii gabagabadii waa sidan gabagabadii waxaan ku leeyahay ninkan xoog la meesha soo galay ninkan odaga wuxuu ku leeyahay way you can do it or what's samayn kartaa xisaabta meesha ama gabaray meesha ka xisaabtaada heerka gaar with more practice ka ugu fiican meelaha internet ku wada xisaab practice gareey it will be easier every day keep working aku leeyahay haddaad rabtid wax su'aalo qabtid ama questions ama comments please igu soo qor halkan al@gmail.com wax su'aalo ama wax faalla ama haddaad qabtid halkaas igu soo qoraysaa markii ugu horreysay emailkana bixiyo emailkaasi ku meel gaara u isticmaalaya insha Allah sidaan u kala awoodaan kugu soo jawaabaya sidaas iyo nabadgelyo